salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. soo dhawaada bulshooy kuna soo dhawaada janaalkeena samawada filimis. magacaygu waa ibraahim nuur sagaarle. fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay sabskribe saar, gambaleelkana furo si waxyaabaha aadka u muhiimka ayo aan soo gelino aad ula socotid. walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u muhiima. mowduucaas oo la yidhaahdo sidee baad ku dooran kartaa saaxiibka wanaagsan ogana fogaan kartaa saaxiibka xun. qof kasta oo bini aadama wuxuu leeyahay saaxiibku marka mid xunna wuu yeelan karaa, mid wanaagsanna wuu yeelan karaa. marka bimaada ikhtaar saaxiibuka weeye, maxaad seebaad ku dooran kartaa saaxiibkaaga? ama saaxiib wanaagsan ha noqdo ama saaxiib xun ha noqdee, saaxiib buu qofku yeelan karaa. marka haddaad doordoorasho gelaysid mostly waxay noqonaysaa inaad dooratid saaxiibka wanaagsan. gaal iyo muslimba waxay jecel yihiin saaxiibka wanaagsan. okay, maxaa lagu kala garan karaa saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan? sidee baan saaxiibka wanaagsanna ku heli karaa, saaxiibka xunna uga fogaan karaa, ayuu mowduuceenu ku saabsan yahay maanta. soo dhawaada bulshooy, kuna soo dhawaada gacmo furan. mahadsanidin. saaxiibkaaga wanaagsan iyo saaxiibkaaga xun, horta waa maxay saaxiib? su-aasha la isweydiina u horeysa waxay tahay waa maxay saaxiib? saaxiib waa qofka aad wada socotaan, isku hobbiga tihiin, markastana fikradiinu ayna iskhilaafin ayaa waxaa la yidhahdaa saaxiib. waxbaad wada qaybsataan, waad wada socotaan, like dad walaalaabaad tihiin camal. weliba saaxiibtinimadu mararka qaar sidaan anigu u aqaano, dadka aan saaxiibaha nahay iyo dadka aniga walaalada ila dhashay, dadkaan saaxiibaha nahaan kaga kalsooni badanahay, aadna ugaga dhowahay. waayo saaxiibtinimadu ciyaar ma aha. waa markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa, haddii ay waalidkaa qof ay saaxiib ahaayeen uu jiro oo uu dhinto waalidka qof ka mid ah, waxaa lagaa rabaa inaad u xidhiirisid siduu aabbaha u xidhiirin jiray ama hooyada u xidhiirin jirtay asxaabtii ay saaxiibada ahaayeen. sidii booskii inaad adigu geshid baa lagaa rabaa. waad aragtay markaan ciyaalka nahay, dadka ragga waaweyn inay yidhaahdaan ama dadka waaweyn ay yidhaahdaan, ninkan aabihiis baan saaxiibe ahaan jirnay, nin aad u qaaliya baa dhalay, ninaan saaxiiba nahay ahaan jirnay, allahun raxme ayaa dhalay. taasoo kale waa xiriirin, waa saaxiibtinimadii ayay ka turjumaysaa. saaxiibkaaga wanaagsan waxaad ku dooran kartaa kow, qodobadan waa inuu leeyahay sidiisaba. kow, waa inuu markasta jecel yahay inuu kuu wado horumarkaaga ama xagga wanaagga inuu kuu wado. maxaa ka mid xagga wanaagga? kow, xilliyada salaadoo kale, marka salaada la gaaro waa inuu ku yidhahda saaxiib, salaadii way dhadhowdahay ina mari. waa saaxiib wanaagsan. saaxiib waxaan kuuma ficine iska daa. waa saaxiib wanaagsan. saaxiib aan horumar samayno oo aan bulshooyinka caalamka ku dayanno, aan horey u soconno hadduu ku yidhaahdo, waa saaxiib wanaagsan. saaxiib waxaan inoo kala goo, waxaana inoo soo helay inoo kala goo, ama lacag ha noqoto ama cunno ha noqoto, waa saaxiib wanaagsan. saaxiib meel baan rabaa inaan aadee, saaxiib inaad raacdaan jeclaan lahaa oo dila soo laabatid. waa saaxiibkaa ku jecel. waa saaxiibka wanaagsan ee markastana cibaadada xaggeeda kugu wada, markasta waalidkiina adeecdid ku wada, markasta ixtiraamka kugu wada, ayaa waxaa la yidhaahdaa saaxiibka wanaagsan. maasha allah. okay, ma soo koobi kara saaxiibka wanaagsan calaamadaha lagu gartee waqtiga nugu yar awgiis waa soo koobaynaa. waxaan guda gelaynaa markan saaxiibka xun iyo calaamadaha uu leeyahay lagu garto. saaxiibka xun calaamadaha lagu garta waxa weeye inuu kaa dhiga lazy person ama qof cajislow ah oo markasta dib jira. okay, wuxuu soo qaadanayaa xabad sigaara, wuxuu ku leeyahay saaxiib hal mar ii nuug. wuxuu soo qaadanayaa xaqaad, wuxuu ku leeyahay qayma kuu gooyaa, qayma ku siiya. okay, xilliga salaada markaad damcadinaa salaada aado, wuxuu ku leeyahay saaxiib waa tukanaynaa, dhib ma lehe, salaada way joogta xilligeedii, wax yarna fariisiniyo. okay, horumar walbo damcadid inaad samaysid, wuxuu ku leeyahay saaxiib kuma wanaagsane, waxaan iska daa saaxiib macaane, maskax uma haysid, waad ku wareereysaa. markasta niyad jab buu kugu wadayaa.
okay marka sideeban saaxiibka wanaagsan aan ku heli karaa? calaamadaha aan ku garanayana maxay tahay? calaamadahaad ku garanaysa saaxiibka wanaagsan waxa weeye saaxiibka markasta allah ku xiran ee aad saaxiib la noqotaa xitaa maalinta jannada la aado. haddii midkiin jannada galo, waad maqashay qisadii saxaabada hadda kahor nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka shekeeyey oo ahayd laba ayaa saaxiibba ahayd, mid ayaa jannada galay, midna naarta ayuu galay. maye labadooda horta jannada naarta ayaa la wada geliyey, kadib waa laga soo saaray. mid baa la yidhi jannada gal, midna naarta ku laabaa la yidhi. kii jannada gal la yidhi baa istaagay, kii naarta gal la yidhina waa istaagay. kii jannada gal la yidhi baa waxa la yidhi maxaad u istaagtay? wuxuu yidhi waxaan u istaagay ilaahayow waa saaxiibkay, meel aan oga tagana garan maayo. waa adigu midkii naarta gal la yidhi baa la yidhi, war maxaad adigu u istaagtay maa gashi naarta? wuxuu yidhi ilaahayow naxariistaada kama quursan. wuxuu yidhi allah maasha allah. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala orda labadiinaba israaco gala jannada. wax ka fiican baa jira saaxiibka wanaagsan. markasta saaxiibka wanaagga kuu wada, ee horumarka kuu wada, ee cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku wada, ee adeecidda mataqaanaa dadka kaa waaweyn ee ixtiraamkooda ku wada, ee markasta wanaagga kula jecel. isku soo wada duubo, saaxiibkaaga wanaagsan kaa weeye, raac. wajazaakum allahu khayran jazaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. mawduucu aad buu u dheer yahay, balse waa inoo soo koobayaa. waa inuu videoga xiga. fadlan aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad dhegaha noo amaahiseen ee aad u dhegaysateen mawduucan aadka iyo aadka u qaaliga ah oo kulligeenina wada anfacaya, aadna aan u jeclaystay. wallahi waqtiga igu yar ma ahee, waxaan aad u jeclaan lahaa inaan aad iyo aad ooga hadlo mawduucan. waa mawduucan aad u jeclahay, ixtiraam badanna aan u hayo, waayo saaxiibtinimadu waxay tahay ayaan ka warhayaa. wajazaakum allahu khayran jazaa wa axsana ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.